gaashaandhigga Hargeysa waanagii saragnay iyo fulay iyo kalmac dhexdooda waanagii kugu qabtay anigoo ixtiraamaya beesha warsangeli waanagii ku hor iska orod ina kaahin baan doonayay intaan ku weli taasay ahayd imankana anigu warsangeli waxba odhan maayo waxna u geysan maayo dhulka iyo deegaantuba waa naga dhaxaysaa adiguna dhulka yagii waad soo martay aan deganayn aniguna waa dhex maraa waxna uma geysto waayo dhulkaa naga dhexaya deegaantuna naga dhaxaysaa dhulka aad soo marto ee u soo marto markaad ka timaado Hargeysa cid baa leh beeraa leh dadkuna waa qoliyo askarta waxba odhan maayo soconaysa waayo waa askartaydii dulmigun baa loo iftiiminaya dadka markii aan dhex maray abaar iyo biyalaan baa haysatay caalamkana waanu sheegay dagaal kuma tegin waa taasoo ciidamo lagu soo raray alright intaa ka bacdi wasiirka waxaan leeyahay markaad warsangeli wax u qabato aad saraakiisha warsangeli faamos ka dhigto kalama digto kuwa Muuse Biixi ayaan kula hadlayaa doona haddii alla yidhaaho waayo sababtaa ina macalin iyo cabdirasaaq bad horgalla ka soo dhigtay oo aan baabuur lahayn xuseen dheeraan ogaa oo guutada 93 haysta xaylaan ogahay wuxuu ku guuro ciidankaan ogahay inay zabaara ku dhaansadaan markaad u qabato iyaga ayaad wasiir noqon doontaa haddii alla yidhaaho kana turjumi doontaa arrimahooda intaasina waa intaa beesha warsangeli waxaan leeyahay anigu horseedu ma yihi dagaal beesha warsangelina waxba igama haysato lana dagaalami maayo waxna u geysan maayo ninka la dagaalamaya waa ninka maanta intuu soo dhoobay ciidan yube tigni ka soo dhoobay dawadiisa soo qaatay dul fadhiya yaa keenay dhibaatada isagaa keenay dulmi weeyi abaar baa haysato iskuullo ma leh MCH ma leh arrimaha bulshaday faaq ka yihiin haddana wax doonaya inuu xoog ku qabsado dhici mayso annagoo la degan dowladda Puntland waajibkay qaadato maanu ka qaadan doonaa haddii alla yidhaaho insha allah tay ka qaadato maanu ka qaadan doonaa dad baa waxay ku naaloonayaan waa isaaq waa kan wax isaaq la yidhaaha ma jiraan cooperation wey iskaashi wey haddii isaaq jiro maamulkaa loo sinaan lahaa cadaaladdaa loo sinaan lahaa ummadoo dhan baa sinaan lahayd qoladu waa wax jira shucaa'iman wa qabaa'ilan tacaarafuu baa ilaahay yidhi waa wax laysku yaqaanaa aniga carruurteeda waa isnaqaan laakiin wax isaaq la yidhaaha ma jiraan soomaaligu waa soomaali sinjiyadda diintu waa diintii islaamka dhulku waa dhulkii soomaaliyeed iyagaanu la joognaa waana ka dhigac dagaalami doonaa haddii alla yidhaaho dhulkan annagaa naqaniyo waddooyinka laga galo wixii laga dhexlaa la heli doonaa taasina waa intaa inanka yara ceergaabo jooga ee ku dhashay coodinle faysal cabdi bootan isnaqaane waa isnaqaan xiniyahaagii diwa maanta waa kugu jiraan haddii alla yidhaaho ceergaabana waa ceergaabo gudahay kaaga qarxi doontaa wallahi 6 gobol bay ka qarxaysaa ee bilaahi taala haddaanay ka qarxin anigaan ahayn adaa yaab arki doona haddii alla yidhaaho ciidanka aad wadataan oo kaayagii waad ogtahay maalin walba noo yimaado waa inamadayadii waxaad arki doontaa gaadiidku halka dhooban dhinacay ka dhooban degdeg haddii aan loogu noqon meeshii waxaa la arki doonaa tallaabo taa ka bedelan jabhadduna meel walba way joogtaa qoladayadii aanu heshiiska ahayna soo booqadna waxaan leeyahay alla jilicsanaayo dhowa reer laascaanood dardaalankaan siinayaa waxa weeye faarq wey maanta tallaabo ha la qaado mid ku habboon ha la qaado weliba saraakiishii
waxaan leeyahay mid ku habboon la qaado hal iska cesho waxa wadayna subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniintaasi markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada